الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ka hadlo maalin dhaweed aan sidaan oo kale hadal u duubay nin baa soo hadlay wuxuu yiri diyaas bara dalka ay leedahay waa dad u soo noqday dalkana wuxuu qabanaya waxaan anigu u arkaa diyaas baro masiibo dalka u timid inay yihiin waana sababaynaya horta dhulkeena Soomaaliya afar inqilaab ka dhacay dadku waxaa la rabaa masiibada haysata inay ka hadlaan afar inqilaab ka dhacay dalkan laba waa hirgashay labana waa dhicisay Soomaaliya inqilaab waxa ugu horeeyay nin la yiraahdo Xasan Kayd waqooyi galbeed markii aan xuruunay isku darsanay waqooyi galbeed ra'iisul wasaare loo ballan qaaday aadan cadda waa kii ka leexshay dhibka maanta taaganna aadan cadda aabba u ahay markii uu ka leexshay wadadii ra'iisul wasaarihii la yiri reer waqooyiyaale wuxuu siiyay majeerteen oo reer seedigiis ahaa intaas markay dhacday Xasan Kayd nin la yiraahdo waqooyi joogay ayaa waxaa tagshiilshay niman badmaaxiinahay oo meelahaas dibadaha carabaha iyo tigay waxay dhaheen inqilaab samee diyaas baray ahay inqilaabkaas waa dhicisay kow waxa ku xigay oo inqilaab ugu xigay inqilaabkii Maxamed Siyaad Barre oo xukunka ku qabsaday waa hirgalay diyaas baro shuqul kuma ay lahayn inqilaabkaas niman saraakiil oo ciidana ayaa isu tagay ka soo gudub bal diyaas bara inaysan ammaan ku hayn wax loo dhiibtana lahayn ku sheegayaa ka soo gudubtaas waa hirgalay inqilaabkaas waxa ku xigay inqilaabkii Ciro iyo Cabdullaahi Yuusuf ay go'aaminayeen yaa waday marka cidda waday oo nimanka tagshiilinaysay oo anfacada ku beelaysay oo leed inqilaab ku qabsada boqortooyadii ma jeerteen aan soo celinay yay ahaayeen waxay ahaayeen niman ma jeerteen laba nin waa isla dhalatay laba ninna islaama dhalan laba waa isla dhalatay waxay ka soo jeedaan magaalada la yiraahdo Qarbo laakiin gaalka ay ku dhasheen asalkase Cismaan Maxamuud ay ahaan Qardhay ka soo jeeday laba ninna waxay ahaayeen reer Mahad waxay ku dhasheen nin wuxuu ku dhashay tuulada la yiraahdo Kala Bayr ninna wuxuu ku dhashay Burco laakiin reer Mahad ah ka soo gudub inqilaabkaas waa dhicisay waxa ku xigay inqilaabkii Maxamed Siyaad Barre loo qabsaday dalka inqilaabkaas markii la aasaasay SSDF oo ma jeerteen baxay oo dagaal u soo jeestay waxa soo hiyikacay niman la yiraahdo Isaaq waa la caburiyay markii ay soo hiyikaceen oo ay dhahan anagu ma jeerteen waa baxay annaguna aan raadsanno inaan ka go'no Soomaaliya waatii Dabayl Weyne la aasaasay Dabayl Weyne magaalo laga dhigay Isaaq magaalo ay ka dhigeen ninkii yimaadba uu Dabayl Weyne aad jiro taas waxa dabada ka riixayay niman la yiraahdo diyaas baro waxba waa ku qaadi waayeen Isaaq iyo ma jeerteen waayo xaniyaha dawladdu waxay ahayd Muqdishona hawiya haystay talaabo markay qaadi waayeen la yiri hawiyaha diyaas barada saan u talaala wala talaal niman hawiya oo dibadaha joogay isu tagay waxa la yiraahdo ka daaduumin Maxamed Siyaad Barre xukunka Maxamed Siyaad Barre asaga laftirkiisa waxba ka qaldanay asagu ma qaldanay shakhsiyan laakiin waxa qaldanaa dad oo ehel ka dhiganayo oo maal gelinayo asagana ma jaxaabinayo masiibadu waxay dhici doontaa maalinkii Daaroodiya la keenay oo ma jeerteen darajo lagu helay dhulkii la siiyay ogaadeen la soo raray jalaalqsay jiiqlay loo qaybiyay la yiri beerihii jireerta qaata adinku iyo hawiyaha xoogga looga qaaday masiibadu maalintaas ay dhacday waa la arkay waxba ma jeerteen iyo Isaaq waa dildili waayeen Maxamed Siyaad Barre markii ay dildili waayeen la yiri hawiyaha la tagshiisho hawiya soo booday nimana qaatay warkii nin la yiraahdo
ismaaciil jimcaale cusuble khayr allaha siiyo jannadii allaha geeyo ninkaasu annaga waana hagardaameeyey oo aad uu noo hagardaameeyey hawiyana waxbuu tusay oo inay dagaalami karaan tus ninkaasaa dig soo yidhi wuxuu keenay quluc masku jiro masku hadba nuuc waaye buuguu ku sawiran yahay waa lahayaa hadda waa yahay qulucdaasuu keenay masaa ku jira maskaasu qofkii qulucda meel ka taabta inta soo boodo isku laabo gowleeya qoftu waa dhimi ayadoo naxash saaran iyo maskii qulucdii ku jiro malabsanayo carab dheer dalam ka siiha oo sawir waa keenay muqdisho keenay xaaji koogaar hotel koogaar lagu shiray waxa la yiri saamtaan ka yeelay wuxuu yiri 50 sano aan dawlad la ahayna haddii qarankan aan burburino waayo qulucdan waxa way qarankii Soomaaliya maska lama dili karo ilaa qulucda la jibsho Soomaa qulucda la jabinaya qulucdu waa qarankii wax kabi kara 50 sano lama arko saan yeelna hawiya waa shiray waxa la yiri war 50 sano ma dawlad la karnee aan faraha ugu qaadnay maxamed siyaad barees ka haystay ismaaciil jimcaale cusuble waa laabtay wuxuu tagay yurub tagay waa soo noqday wuxuu 35 sano ka soo aan dawlad la ahayn waana sababeeyay wuxuu yiri dad isku diina isku luuqada isku dadahan marka 50 sano dawlad la aamin laakiin 35 sano waa la hubaa inaan dawlad la ahayn onan dawlad heli waxa la yiri marka dooda ka hortay doodii ka hortimid waxay ahayd sidan waxa la yiri war maxamed siyaad barre raas casayr iyo raas gambooni wuxuu ka dhigay geed iyo askari iyo madfac yaa maxamed siyaad barre la diriri kara qorshow keenay waa nin aqoon yahan qorshow keenay wuxuu yiri askariga wadaniyada laga lumiyo waa sida maanta shacabka Soomaaliyeed yahay wadaniyada laga lumiyo see looga lumaha wuxuu yiri sharci qabta askariga ma ahan sharci ilaalsha yaa ma arag ilaahay ka cabsade maanta miyaan shacabka Soomaaliyeed ma sharci ilaalsho u leeyahay sharci qabto